Maalin wanaagsan saaxiibayaal meel walbo aad joogtaan. Muuqaalkan maanta waxaan kusoo gudbinaynaa hadduu Ilaahay idmo sida Kali Linux loogu duubo VirtualBox. Muuqaalkii ka horeeyay waxaan kusoo gudbiyey sida VirtualBox loogu shubo Windows systemska ama kombiyuutarada Windowga. Maadaama VirtualBox-ka aad diyaarisay oo sidaan oo kale kugu diyaarsan yahay, haddii aad rabtid inaad ku shubtid Linux, stepka koowaad aad sameynaysid muxuu yahay? Step number 1 waxaad sameysaa Google Chrome-ka, waxaad ku qoraysaa kali.org, then wuxuu ku keenayaa page-kan, then kadib waxaad sameynaysaa download, click ku dheh, then wuxuu ku geynayaa page-ka ISO-ga uu yaalo. Labadan option ayaa recommended ah. Midkan waa virtual machineska ISO loogu talagalay, sidoo kale kanna waxa waaye installer images. Labadoodba waa la isticmaalaa. Anaga waxaan isticmaalaynaa midkan, marka kanaan isticmaalaynaa, then architecture-ka 32 bit iyo 64 bit midka kombiyuutarkaaga uu yahay waa fiirin kartaa, then kaasaa soo degsanaysaa, then waxaad taabanaysaa halkan falaarta hoos oo download ah, then wuxuu bilaabayaa installationkii ama soo dejintii uu bilaabayaa. Marka aad soo dejisid wuxuu galayaa downloadska, then downloadska dhoodi ka soo qaado, digaaga folder ka mid ah dhigo oo setup iyo waxyaabo noocaas ku qoro. Intaas waa sida loo soo dejinayo imagekaas sida uu noqonayana waa sidaan oo kale, image sidaan oo kale kusoo baxayo. ISO-gan waaye ISO-ga ama cajalada aan ku duubeyno VirtualBox-kan halkan ka muuqda. Markaad soo dejisid kadib ayaa waxaan bilaabeynaa duubistii. Marka si loo bilaabo duubistii waxaan leenahay new, then halkan waxaan ku qoraynaa mashiinka aan rabno inaan ku duubno VirtualBox-ka. Magaciisa waxaa la yiraahdaa Kali Linux aan rabno inaan ku duubno. Halkan waxa waaye folderka oo rabtid in lagugu duubo ama lagugu keediyo. Haddii C-gaaga oo drive-kiisa uu yar yahay, waxa waaye D-gaad ka dhigan kartaa. Marka D-ga ayaan halkan waxaan leeyahay halkan hoos imaaw, this PC dheh, D-ga taabo, then double click. Meeshaan oo kaleeto folder waxaa igu jiro virtual machines lab ayaad waxaa ku sameysanaysaa folder, then folderkaas uu kugu jiraana. Marka D-ga virtual machine lab folderkiisa ayuu kugu install gareynaa. Then type-ka waa Linux waaye, versionka Linux wuxuu ka yahay Debian 64 uu ka yahay Linux-ka hadda aan isticmaalayn oo Kali Linux ah. Meeshan waxaa laga yaabaa marka adigu kugu horeyso aad ku shubaysid halkan guided mode-ka ah, waxaa laga yaabaa inuu sidan ku yahay. Sidan marka ugu horeyso inuu sidan ku yahay laga yaabaa. Expert mode taabo, then markaas inta ku qor operating system-ka aad rabtid, Kali Linux. Expert-ga taabo si hadhoodii ay kugu soo baxaan optionskan hoose aan isticmaali doono. Marka option-kan hoose wax muhiimad ma laha, laakiin option-kan oo hardware-ka ayaa furaysaa. Markaa furtid memory-ga ama RAM-ka dooranaysaa. RAM-ka aniga keyga 16GB waaye, kaaga wuxuu noqon doona ma aqaani. Marka hadbo ma aragtay inta green-ka ah ayaa ku haynaysaa. Processor-ka ilaa 8 processor ah haystaa, marka ilaa 2 ilaa 1 ilaa 3 waa isticmaali karaa, 1-ka u deenaya. Hard diskaha waa very important, by default 20 oo kuu qaadaa, waa ka badin kartaa ilaa iyo 50 ilaa iyo 60GB meelahaas. Haddii uu hard diskigaaga uu weyn yahay ilaa 60GB meelahaas ka dhigo. Okay, intaan waa inta asaaska ah. Then intaan markaa sameysid, then finish now. Okay, step number 1 hadda installation ma sameynin, base-ka oo keliyaan fadhiisanay, then right click dheh, setting dheh. Hadda setting waxyaabo badan ka bedeleynaa. Waxaa kow ka ah advanced-ka imaaw, halkan shared clipboard-ka iyo drag and drop-ka waxaad ka dhigtaa bidirectional ka dhig. Wuxuu kaa saacidayaa kan in hostiga kombiyuutarka Windowga adiga aad isticmaaloosid inaad file ka soo jiidid oo aad Linux ka dhex dhigtid. Description-kan oo kale waxaa iskaga qortaa password-kaaga si aadan u iloobin. Password-ka haddaadan muddo isticmaalin waa iloobaysaa. Then system-ka imaaw, system-ka wixii haddaaya RAM-ka meeshaan ka saxna waaye, wax kale hadda inta ka taabanayno, laakiin display-ga video memory-ga waa weyneynayna ilaa 120 ama waa dhammaystiri kartaa ama ilaa 120. Wuxuu kaa saacidayaa screen-ka oo shaashada uusan noqonin screen yar inuusan noqonin. Recording-kan oo kaleete haddaad enable dhahdid wuxuu kaa saacidayaa in VirtualBox-kan oo wax kuu duubi karo kaa saacidaya, laakiin by the time oo uu shidmaba screen-ka recording oo hor ka bilaabaa. Marka waa inaad ku xisaabtantaa inaad space fiican aa haystid. Haddaadan recording u baahnaynin jeeg ha saarin. Storage-ka imaaw, halkan uu ku qoran yahay empty, qoran yahay click C, then halkan cajalada click C waxaan soo gelinaynaa image-kii aan hadday soo dejinay. Then
hadda waxaan soo geliyey ISO-gii waa cajaladii lagu duubi lahaa virtual boxkan. Network halkan imaaw NAT ah hadda saaran by default. NAT waxa waaye connection ma lala soo samayn karo from outside of your network. NAT network connection ma lala soo samayn karo. Waa the best way oo maaragtay uu safe u ku noqonayo networkgaaga haddaa NAT isticmaasho. Sidoo kale waxaa la isticmaali karaa bridged adapter. Bridged adapterka waxa waaye in qofka isticmaalayo Linuxka awood u heli karo sida uu maaragtay access ugu heli karo IP addresska computerkaaga caadiga ah. Macnaheed waxa waaye hal albaabay ka wada qaadanayaan, hal gateway waxay ka wada qaadanayaan IP addresska. Taasoo macnaheed ah xaqa uu leeyahay PC-gaaga uu virtual machine-kan yeelana. Labadoodu waxay noqonayaan sida laba computer caadi camal ah. Marka bridged ka dhigaysid khatar badan uu leeyahay maxaa yeelay waxaad toos ula macaamilaysaa outside-ka ama banaanka toos ula macaamilaysaa. Marka taas waa sidaas. Halkan shared folder-ka waa very important. Tusaale ahaan faylal gaar oo waaweyn aa jiro sida hadda tools oo ka dhexeeyo ama tools aan marar badan u isticmaali doontid labada meel. Linux-kan u isticmaali doontid, Windows-kan u isticmaali doontid. Marka folder waxaa la sameeyaa labadoodii ka dhexeeyo. Folderkaas hadhoodii markaa window tagtidna waa ku arkay, intana waa ku arkay. Labadoodiba waa ka dhexeynayaan. Marka plus aa leedahay ku soo dar folderkan, then other aa leedahay, then Windows-kaaga diigo kale waxaa ku samaysanaysaa sidaan oo kale shared folder oo waxay tuulal oo labadoodii ka dhexeeyay waxaas aa kusoo shubi doontid. Select aa leedahay, shared folderkan diigo ku jira. Marka auto mount aa leedahay. Auto mount waxa mar walba oo shidid soo qabsanaa. Okay aa leedahay. Markaan settingskiis wixiis dhan way fadhiyaan. Now waxaan leenahay start. Hadda waxaan dhan aan sameynayno waa setting saxitaan waa. Hadda waxaan leenahay start marka. Hadda wuu soo kacayaa. Okay, mar alaala markuu soo kacay installation-ka hadda noo bilaabanayo. Marka halkan graphical install ku qoran yahay aan dooranayna. Taasoo naga saacidaya inaan muuska isticmaali karno. Marka graphicalka isticmaalaynaa. Okay, halkan luqadan dooranayna waa English symbol. Wadanka United States ku saaran laakiin wadankaaga Soomaaliya waa dooran kartaa. Other dooro, then Africa ka dooro, then hoos imaaw Soomaaliya halkaana ka helaysaa. Marka Soomaaliya dooratid, then United States wuxuu ku saarayaa time frame oo u dhigmi karo Soomaaliya maaragtay u dhigmi karo ku saarayaa. Then okay dheh. Keyboardka American English caadi sidiisa u daay. Okay, now network uu isku dayaa inuu soo qabsado. Sometimes wuu soo qabsanaa, sometimesna network-ga maaragtay adapterka inuu soo qabsan waayo dhici karto. In case hadduu lacala soo qabsan waayo, option do not configure this time dooro. Haddii oo network adapterkaaga uu soo qabsado waa sidii la rabay waa arkaynaa. Marka hadduu kale uu soo qabsan waayay, marka option-kana dooranayna do not configure at this time. Okay, now hostname-ka waa Kali. Hostname-ka waxa waaye Kali Linux-ka asaga hostiga iska ah. Marka anaga waxaan leenahay magacaan. Magacaan waxaan leenahay Katib. Magacaaga ku qoro. Continue dheh. Username-ka Katib uu kugu qaadanaya, then password-ka geli. Now password-kii waa gelinay, then wuxuu soo qabsanayaa partitionskii ama diskigii. Halkan options badan aan haysanaa in uusan kala qaybinin oo si guud diskigeena aan installation ku sameynaan dooranayna. Then diskigeena 115 GB waaye. Halkan waxa waaye hal partition ma kuu sameeyaa which is recommended mise waa kala qaybinaysaa. Marka sideedii halka partition all files igu install garay. Now hadda partitionka howshiisa waa ka dhamaanay in aan ku qorno installation-kan dooranaynaa. Halkan markii la joogo wax gadaal ka laabasho ah ma jirto. Mar hadda yes inaan dhahno waaye waxaan leenahay qor ama installation ku samee. Waxaa jiro laba meel oo muhiim ah oo installation-ka wixii hadda ka dambeeyo loo baahanayo. By the way, halkan markii la joogo waqti badan ay qaadanaysaa. Marka waa inaad kusii xisaabtantaa koobkoo shaah iyo faygo iska soo dalbo tartiib installation-ka kaaga dhamaado waqtiga qaadanaysaa. Marka videoga boos aan leeyahay ilaa laga gaarayo. Okay, cabaar markaa sugnay halkaan uuna keenay. Marka sidaan u dayn kartaa maaragtay labadan dhiman waa ku dari kartaa haddaa rabtid. Marka anaga GNOME-kan oo kaleeto waa dooranaynaa. Then inta kale sida u daynaynaa waxaan leenahay install. Marka big deal-ka hadda waaye waqti uu qaadanayaa. Haddii inta installation-ka uu socdo oo shaashada mugdi uu noqdo ma demin muuska dhaqdhaqaaji bis haddana ku soo laabo. Okay, halkaan uuna keenay. Marka Light DM-ka ayaa speed badan sida uu u ekaanayo graphical ahaan markii aad Kali Linux-ka ku shubatid ayay labadan kala yihiin. Labadoodii waxa waaye GDM-ka horaa loo isticmaali jiray. Light DM-kana waa nooca cusub oo hadda la isticmaalo Linux-ka ama Kaliga siduu u eg yahay graphical ahaan muuqaal ahaan Light-ka speed fiican. Marka Light-kan dooranaynaa.
installationkiisa halkiisuu kasii wadanaya, anigana waan sii pause gareyneynaa muuqaalka. Waqti dheer kadib halkan uuna keenay oona ah meesha ugu muhiimsan runtii. Meeshaan hadday no ku tahay yes dooro, kadibna maaragtay okay dheh. Halka ugu muhiimsan waa halkan. Halkan waxa waaye in virtual boxka hard diskii hadaaye aan soo calaamadeynay oo wax lagu duubayo maanta oo dhan inaan doorano. Marka by default halkan uu dooran yahay, aad uga taxadar halkan continue ha dhihin, waa inaad hard diskaha dooratid. Hard diskaha markaad dooratid kadib continue dheh, hawsha meeshaasi ku dhamaatay. Hadda waxaa noo haray one step oo in installationka uu dhameeyo uu ku sheegayo, dibna maaragtay restart uu isku sameynayaa installationkii, saasuu ku dhamaaday. Okay, halkan uuna keenay oo ah in installationkii uu dhameeyay, rebootna uu dirayo. Waxaan leenahay continue then finishing the installation. Marka now wuxuu isku dirayaa reboot then installationkii halkan uu ku dhamaaday. Okay, finally waa dhameynay. Aad u xasuuso username-kaaga mar walba waa muhiim. Waxaad xasuusan kartid inaad ka dhigatida loo baahan yahay. Password-kana waa sidoo kale muhiim asagana. Always meel ku calaamadeyso username-kaaga iyo password-kaaga ha iloobin. Now restart inuu isku sameeyay, then hadda waa soo galnay. Marka Linux-keena waa diyaar. Sida aan rajeyneynay ay wax walba noogu soo dhamaadeen. Marka insha Allah waxaan ku xijinayaa muuqaal yar oo kooban oo aan kusoo bandhigayo waxyaabaha asaasiyaadka markuu sidaan qofka installationka uu dhameeyo inuu sameeyo loo baahan yahay. Muuqaalkeena wuu dheeraaday, halkan ayaan kusoo gabagabeyneynaa. Maalin wanaagsan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.